16 نوفمبر ومالين مالمها خميدون عددنا halkayga aan bay ka soo baxaysaa barigayga aan bay ka soo bixi galbeed ka soo bixin mayso 16 نوفمبر oo maalinta Soomaaliland ay nabadeedu kaamil noqonayso doorasho diyaar loo yahay wixii waxa ka dambeeya wixii ka yimaada adaa mas'uuliyadeeda qaadaya 16 waa bariyaad daalay waxa ka hadhay waa saacadeer wax alla wax dhacayaana doortu ma jiraan xaqiiq ahaan labadaanina de isku haya kursiga waa Ciriyo Muuse inta go'aan gaaraya deeyaga dib isku laaban iyaga geedkooda wadatay laakiin ummadda deeyaan lagu leeyahay waxan iyadoo saacado kooban ay ka hadhan tahay maalinta 16 Noofambar oo ay ku eegtahay muddaxileedka madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi ayaa bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Boorama waxa uu telefishinka Honkeyble wax ka weydiiyay bal sida ay u arkaan maalinta 16 Noofambar iyagoo xisbiyada mucaaradku ay ku baaqeen in madaxweynaha aysan u aqoonsanayn maalintaas wixii ka dambeeya 16 نوفمبر oo maalinta Soomaaliland ay nabadeedu kaamil noqonayso wax allaali wax ka jiro iyo wax rabshada iyo wax dhaqdhaqaaq oo dhici kara oo yaraatay ma jirto waxa weeye doorashada saakii baa loo qabtaa doorashada la galaya wax kale xisbiyada ay ku qeexayaan haba yaraatay ma jirto maalintaas waa maalinta farxadda wax allaali wax ka dhacaya Soomaaliland iyo wax goolaaftan mooyaane iyo hanjabaadaas u qalqalqaylay mooyaane maalintaas waxay noqonaysaa maalinta ونبض مع سوماليلاند hore waxa u aqoonsadeen in 16 ay dhaafayaan 9 bilood oo komishanku ay qabteen doorashada horta 16 kaas ayaan waxa weeyaan mar haddii marka horeba aqoonsadeen oo yiraahdeen 9 bilood in lagu qabto doorashadii baan diyaar u nahay 16 horta way ka guureen waxa ugu soo noqdaan 16 horta ma taalo waa qalad 16 waa bariyaad daalay waxa ka hadhay waa saacadeer wax alla wax dhacayaana doortu ma jiraan xaqiiq ahaan sababtoo ah haday iyagu wax sameeyaan waa wax qalad ay ku sameeyeen 9 bilood oo kale ayaa u aqoonsadeen oo in lagu qabto ay tahay doorashadii halka inay ka hadlaan mooyaan 16 uma ka hadlaynaa de waaba laga guuray 16 mar raba waxaan qodob baan leeyahay oo madaxweyne sharciga ku soo laabo beritoole muddaxilaadkaaga sharciga u dhamaaday bari wixii ka dambeeya wadanku oo loo sameeyay marka madaxweyne sharciga ku soo laabo ma jiraan muddaxilaad ku siinaya beritoole kadib inaad kursiga ku sii fadhido madaxweyne ka soo bax miiska kaalay doorasho ayuu dalku aadaya beritoole laga bilaabo dalku doorasho diyaar u yahay xukuumad la doortay ma bedesha in markaa maxay hayday waxaan ku baaqi lahaa anu maxay hayday ay saddexda xisbi isku yimaadaan aragtidooda iyo halkay wadankan u wadaan si nabada ay ugu hogaaminayaan ay ka tashadaan dadkana laba loo qaybiyaa qayb waxa la yiraahdaa maxay hayday optimistic qaybna pessimistic baa la yiraahdaa marka pessimistic waa dadka hadii xagga madow wax ka eega marka xagga madow ka eegno insha Allah khayr baynu video 16 Noofambar waxiligi dastuurku noo baneeyay in sharcigi madaxweynaha Muuse Biixi ku ekeed weeyaan wallahi arinta haddaan ka fikiro waxa weeyaan 16 Noofambar waxa dhici kara waxyaabo badan haddii maanta madaxweynuhu soo saarin go'aan xaydeeda bulshada qanciya waqtiga mucaaradku ay qabteen waxa weeyaan waqtigii kama dambeynta ahayd ee xilku ka dhamaanay Muuse Biixi waxaan leeyahay Muuse waqtigii uu ka dhamaaday sharciga ku soo laabo doorasho diyaar loo yahay wixii waxa ka dambeeya wixii ka yimaada adaa mas'uuliyadeeda qaadaya Noofambar ay tahay 16 Noofambar maalmaha kale meelaha noolami tahay haddaan gobolka raawdan lahaa ma dhayta raawdan lahaa ma garanaysaa Boorama ku noolayd aan nahay caadi baan ku iska dana jigu degan ku jirnaa jiru baaqis ma ku jirnaa wax alla wax naga dhibaanaka ma jirto alxamdulillah baan leenahay haddaan raawdan lahaa inta raawdan waxaan u sheegayaa waxaan dinteena hayn yaa waxaan dinteena hayno kuma garanayno waxaan dinteena waa in xisbiyada noo furo bari toolana bari haddii ilaahay raado sida maalmaha kale meelaha noolami tahay waxaan taageernaa xisbiga dawladda beritoole haddii ay wax dhacaan kulli wax dhacaya waa mudaharaad kaas oo islaamiyeen labada xisbi mucaaradka anigu waxa oran lahaa aniga ahaan xisbiyada mucaaradka dawladii horta wala iska horkeenaya waxaana beritoole dhacaya markii dawladii ay mudaharaadaan waxa dhacaya in biliiskii meeshii ay rabshado abuurmaan horta nooma fiicna inaga ahaan mudaharaadadaasi waxaasi marka labada sano loogu daray madaxweynaha haddii la isla qaato taas la wacnaan lahayd anigu bulshada waxa la wadaagayaa inaan wax mudaharaad la isku soo bixinba aniga wax u dhicin dalku sida ahaado inta rag labadaanina isku haya kursiga waa Ciriyo Muuse inta go'aan gaaraya deeyaga dib isku laaban iyaga
geedkooga wada tegi laakiin ummadda dee yaan lagu leyn waxaan qaar horaa dhintaan lahaa qaar kalena naga dhintaan ma rabno de kolley adduunyada lagama arkin dee waddan dhisan oo madaxweyne leh oo saakun la idhaa madaxweyne nooma tiid soo madgaran wax walbana isfahan ayaa lagu dadejiyaa dee inay idhaahaan gurigan muuse kuugu imanna xaq bay dadkuu leeyihiin oo isaguba dee xukuumaddii ka horraysay daahiryaala ayaa albaabka lagu garaacay xaq bay u leeyihin in albaabkan kugu garaacaynaa laakiin in ummadda la kallifo maahan xukuumad la idhaaho madaxweyne uu ka jiro oo la idhaha saaka cidinama maamusho oo madaxweyne nama maamulo dee adduunyada kama dhicin somalilandna ka dhici mayso madaxweynuhu dee uu baalmarsan yahay habkii siyaasiga marka anu madaxweynahan ugu baaqayaa uun in mar walba uu tixgeliyo mujtamaca somaliland ay soo doortay hadduu dee mustaqbal dambe ka rabo iyo odaytinimadiisa dambeba waddanku uma baahna qalalaase uma baahna buuq uma baahna dagaalan dalka beesha dhexe keligeed ma degana beesha dhexe dalkan keligood ma degana waa la degan yahay cid kasta la degan dadkan siyaasiyiinta ee u hanqal taagaya siyaasadda dee abtiyaal waxa weeye dalkan waan wada leenahay halla wada ilaashado 13 November oo ay ku baaqeen mucaaradku in rabshado dhici doonaan horta waxaan leeyahay madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi baan leeyahay waxaan leeyahay madaxweynaha dalkii maamula weligeedna dee waxa tanaasula kulley madaxda ayaa tanaasulka badi baan leeyahay nimanka mucaaradkana waxaan leeyahay dalka la burburinaya iyo dagaal baa la galaya horta Soomaaliland way ka gudubtay waqtigii beelahana waa laga soo gudbo imka qaran baa jira waxa lagu dhameynaya wax walba wada hadal waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaalilandna dawladda ku dhimanaysa waa idinka Suleyka Daahir Xuseen oo ka soo jeeda gobolka Awdal gaar ahaan Boorama marka anigu fikradayda waxaan oran lahaa nabadu waa caana macaan nin walbana waa u dan insha Allah shicibkeenna waxaan oran lahaa wixii danteena iyana garan waay wixii balaayaana Ilaahay baan ka magan galnay marka anagu nabad ayaan leenahay mar walba insha Allah sanadkuna waxba ma aha madaxweyneena lagu raaco waxba ma aha sanad wax ka leeyina bari uu iska dhamaanaya Axmed Muuse Sheekh Xasan Axmed Buri wararka Home Cable Boorama